bismillaahi raxmaani raxiim maalin wanaagsan kusoo dhowow daawade wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka aad xilligan ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay shirka ka socda dalka Jabuuti iyo qodobadii laga wada hadlay iyo xaaladda guud ee shirkaasi abaabulka mooshin cusub oo ka dhana gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi oo ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xog iyo macluumaad ku saabsan qorshaha Dr. Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee shirka wada hadallada iyo arrinta qarsoon ee shirkaasi ka dambaysa xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweyne farmaajo eedii ugu cusleed u jeediyay soona hadal qaaday dagaalo mudug iyo shabeellooyinka ka socda dhacdo cajiib ah oo Muqdisho ka dhacday askari 2,000 oo shilin Soomaali ah ruux rayid ah oo ganacsada ugu dilay meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya saraakiil is hor istaagay dibadbax lagu taageerayo madaxweyne farmaajo oo Muqdisho la sheegay in xabsiga lagu dhigay madasha xisbiyada qaran oo eedii ugu cusleed mar kale u jeediyay dawladda Itoobiya digniinna soo saaray iyo daawadii ugu horeysay cudurka coronavirus oo la helay waa 17 bisha 6 sanadka 2020 intaasi waa qodobada wararka ugu doorka roon iminkana u diyaar garow inaad daawato warkaasi oo faahfaahsan haddii ay tahay daawada markii kugu horeysay subscribe dheh channelka oo hel macluumaadkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda waxaan ku hormari doonaa Jabuuti wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ergooyinkii ka socday ayaa maalintii shalay mar kale la isugu yimid maalintiisii saddexaad iyagoo ay ka socdeen gudaha magaalada Jabuuti wadahadaladaas ayaa waxa ay u socdeen gudiyo farsamo oo ka kooban 14 xubnood oo labada dhinac waxaana goobjoog ka ah madaxda sare ee labada dhinac iyo sidoo kale dawladda Jabuuti sida xogta aan ku helayno wadahadalada gudiyada u socda ayaa waxay yihiin kuwa albaabada ay u xiran yihiin isla markaana ay qayb ka yihiin diblomaasiyiin ka soo jeeda dalka Mareykanka qodobada ugu muhiimsan ee labada gudi ay ka wada hadleen maalinimadii shalay ayaa waxay yihiin ilaa iyo 5 qodob waa tan koowaad iskaashiga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland laba fududeynta isdhaafsiga ganacsiga arrinta saddexaad sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen ammaanka gaar ahaan la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada arrinta afraad oo ah in la joojiyo dacaayadaha ee labada dhinac warbaahinta ay soo marinayaan isla markaana laga shaqeeyo xasilooni iyo mid ugu dambaysa oo ah in dib loogu noqdo heshiisyadii hore oo ay kala sixdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland isla markaana la fuliyo kuwii ugu muhiimsanaa qodobadan ayaa waxay ahaayeen kuwa maalinimadii shalay laga hadlay waxaana jira qodobo kale oo u baahan in laga wada hadlo kuwaas oo la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu adag hase yeeshee dhinacyada ayaa waxay doorteen in ay soo hormariyaan qodobada ay fududahay in laga heshiiyo si waqti dheer loo siiyo shirkan ayaa kasii socon doona magaalada Jabuuti caasimadda dalka Jabuuti waxaana la ogeyn waxyaabaha ka soo bixi doona mar walba waxyaabaha ka soo kordha shirkaasi iyo macluumaadkii ugu dambeeyayna wararkeena ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah magaalada Muqdisho hadii aan eegnana waxa ka soconaya isku dayga abaabul mooshin ka dhana gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaasi oo la sheegay in villa Soomaaliya ay taageersan tahay xogta aan helinaya waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu kulamo u la qaatay senatarka ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo wada abaabulka mooshin ka dhana Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka abaabulka mooshinkan ayaa sidoo kale waxa qayb weyn ka qaadanaya senatarka ka tirsan golaha aqalka sare waxaana la sheegay in lagu bixinayo dhaqaale dhowra wararkan helinaya sidoo kale waxa ay sheegayaan in kulamadaani xubno ka tirsan golaha shacabka ay qayb ay ka yihiin waxaana lagu qabtay baa liiri 2 hotel oo ku yaala magaalada Muqdisho waxyaabaha la isku soo hadal qaaday waxa kamid ah in xubnaha ka soo horjeeda Cabdi Xaashi aysan marnaba kulamada Cabdi Xaashi iclaamiyay ee aqalka sare aysan tagin ilaa amar dambe iyo in la sameeyo kulamo kale inta oo lagu diyaarinayo mooshinkaasi oo mid degdeg ah isla markaana lagu horgeyn doono fadhiga aqalka sare ee baarlamaanka abaabulkaani xoogan ayaa wuxuu ka jira magaalada Muqdisho kaasi oo ku saabsan khilaafka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa aad u sii xumaanaya khilaafka ka jira gudoonka aqalka sare kaasi oo la aaminsan yahay in villa Soomaaliya ay door ay ku leedahay villa Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka carootay markii gudoomiyaha aqalka sare uu iclaamiyay shir dhex maraya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inkastoo madaxtooyada ay markii dambe ogolaatay shirkaasi kadib cadaadis kaga yimid beesha caalamka waxyaabaha ka soo kordha wararka kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa eedeyntii ugu kululeed waxay u jeediyeen madaxweyne farmaajo madasha xisbiyada mucaaradka ay ku midaysan yihiin ee ay hogaamiyaan madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda jirta ku eedeeyay dagaal qabaa'ileed inay ka wada qaar kamid ah gobolada dalka madasha waxay xuseen gobolada Mudug Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Hiiraan Gedo Banaadir Jubbada Hoose Galgaduud iyo dawlad deegaanka Soomaalida
mana aysan sheegin dagaaladaasi meelaha ay ka socdaan, iyadoo aysan jirin colaado waqtigaani beela u dhexeeya oo ka socda dhammaan deegaanadaasi. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa lagu xasuustaa dagaaladii qabaa'ilka ee ka dhacay gobolada labada Shabeelle, Mudug iyo Banaadir oo qayb ay ka hayeen ciidamada dowladda, qaarkoodna lagu qabtay ciidanka NISA oo sida la sheegay beel ahaan u safnaa. Magaalooyinka Marka oo Shabeellaha Hoose iyo Gaalkacyo oo Mudug ayaa dagaal qabaa'ile siyaasadan ay ka dhici jireen muddooyinkii ugu dambeeyay, inkastoo hadda lagu eedeynayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu door uu ku leeyahay dagaal beeleed ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka. Kasoo dhaliisha madaxweynayaashii hore waxaa kaloo ay sheegeen in Itoobiya faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, iyaga oo digniintii ugu adkeedna u diray dowladda Itoobiya, gaar ahaana ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Madashu waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in lagu xadgudbay qarannimada Soomaaliya, siyaasadda dalnimo, madax bannaanida siyaasadeed iyo cunaqabateynta hubka ee lagu soo rogay Soomaaliya 1992 oo tirsigiisu yahay 733 qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee 520 oo soo baxay sanadkeen 2020. Gabagabadii qoraalka ayaa toos beesha caalamka iyo Qaramada Midoobay waxa loogu baaqay in il gaar ah lagu eego faragelin qaawan oo ay sheegeen in Itoobiya ku hayso arrimaha Soomaaliya. Ciidanka aan AMISOM ka tirsanayn ee sharci darrada dalka ku jooga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wada hadal dhab ah la furto madaxda maamul goboleedyada dalka si loo maareeyo marxaladda kala guurka doorashada dalka, ayay sidoo kale ugu baaqeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wax ka qabato dhammaan dalabyadaasi dhankooda ka imaanaya. Arrimahaasi markii aan ka gudubnana aan dib ugu laabana dalka Djibouti, waxaan eegi doonaa macluumaad ku saabsan shirka Djibouti ee Soomaaliya iyo Somaliland, doorka Abiy Ahmed iyo Geelle ee mideynta Soomaaliya muxuu yahay. Shir u dhaxeeya wafuud ka kala socota dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa ka dhacay magaalada Djibouti. Shirkan gogashiisa waxaa dhigay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo furitaanka kadib dib ugu laabtay Addis Ababa. Waxaa la dhisay guddiyo farsamo isku dhaf ah oo si ambaqaadaya waxyaabihii laga wada hadlay iyo sidii looga heshiin lahaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa hore u wada hadlay muddo dhowr jeer ah, tan iyo 2012 waxaa jiray kulamo kala duwan oo ka dhacay Dubai, Turkiga, Djibouti iyo meelo kale. Kulamada ayaa hakad ku jiray muddo sanadaha. Somaliland ayaa shuruud ka dhigaysay in kulanka ka hor la meel mariyo wax walba oo hore loogu soo heshiiyey. dib u soo celinta kulamadani waxaa soo dhaweeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Mareykanka, waxaana ku tilmaameen in 20 sano kadib Ismaaciil Cumar Geelle uu qabanayo shir mar kale taariikhi ah oo lagu xoojinayo dib u heshiisiinta iyo barwaaqada Geeska Afrika. haddaba doorka Dr. Abiy Ahmed muxuu yahay? bishii February madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa ku kulmay magaalada Addis Ababa. Faahfaahin buuxda lagama bixin kulankaasi. Kulanku wuxuu ahaa kii ugu horeeyay oo toos labada dhinac u dhexmara. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaana xilligaasi xaqiijiyay in shirkaasi uu dhacay, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo saxaafadda la hadlay maalmo kadib kulanka wuxuu xaqiijiyay in kulan uu dhexmara Biixi iyo Farmaajo, inkastoo isaga xitaa uu ka gaabsaday kulanka. Laakiin madaxweynaha Somaliland ayaa baarlamaanka Somaliland ama golaha guurtida ka horsheegay kulankii ka dhacay magaalada Addis Ababa. Abiy Ahmed ayaa waxaa la sheegay inay ka go'antahay in gobolkan dib loo mideeyo, taasi oo ku aadan in nabad guud ahaaneed ay ka dhalatay gudaha dalka iyo gaar ahaan Afrika oo idil. doorka Ismaaciil Cumar Geelle marka la eegana markii uu bilowga ahaa ololahaas dhexgalka dowladda Djibouti qayb kama uusan ahayn. Madaxweynaha Geelle ayaan arrintaasi si kale u arkayay. Hadal Geelle uu ka jeeday shirka madasha aragti wadaaga ee lagu qabtay Djibouti bartamihii December waxa uu ku taliyay in laga fiirsado wax ay soo kordhinayaan isbedeladaasi, loona koorgalo wixii faa'iidooyin ah ama khasaare ah oo ay wataan. arrinta kale ee yaab kale waxay tahay in magaalada Muqdisho ay ka dhacday in askari Soomaaliyeed oo ilaalinaya mid ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo dil u geystay ruux rayid ahaa oo ganacsada ah. Askari ka tirsan ciidanka booliiska isla markaana ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ayaa la sheegay in nin ganacsada uu ku dilay xamar jajab gaar ahaan isgoyska Ceelgaabta oo u muuqda madaxtooyada Soomaaliya. dadka dhacdada goobjoog u ahaa ayaa waxay sheegeen in askari ninkaasi uu u dilay xabad sigaar kadib markii uu amray inuu si bilaash ah ku siiyo. Xogta kale oo soo baxaysa waxay sheegaysaa in 2,000 uu siiyo marka hore, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwa jeexjeexan, isla markaana askariga uu ka dalbaday inuu ka bedelo, laakiin la sheegay inuu qasab ku qaadanayo sidaasina uu ku dilay. Marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu koobay Cumar, wuxuuna isgoyska uu ku iibin jiray bagaashka oo u saarnaa gaari gacan, halkaas ayaana la sheegay in lagu dilay. 8 caruur ayaa la sheegay inuu dhalay oo uu ka
biiri jiray arrintaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa qoraal uu soo dhigay barta Facebook wuxuu ku sheegay in markii falkaasi uu dhacayay uu goobta uu marayay isla markaana ilaaladiisa ay qabatay askariga dilka u geystay ninka ganacsadaha ah. magaalada Muqdisho haddii aan eegnana waxaa lagu waramayaa in taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay u yareeyeen taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle ka tirsan Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle kadib markii ay soo istaageen isaga iyo saraakiil kaleba banaanbax lagu taageeri lahaa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka. Saraakiishan ayaa qayb ka ah ciidamada hoos yimaada Hirshabeelle waxaana muddo 3 maalmood la sheegay inay baajinayeen banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxaa lagu waramayaa hadda warar soo baxay ay sheegayaan in hadda la keenay magaalada Muqdisho isla markaana CID ay ku xiran yihiin. ugu dambeyntiina guud ahaan qubarada caalamka ee dunida ayaa maskaxdooda mashquul waxay ku ahayd sidii daawo ay ugu heli lahaayeen COVID-19 hase yeeshee qubaro ka tirsan jaamacadda Oxford ee magaalada London ayaa waxaa la sheegay in shaacana ay ka qaadeen war aad loogu farxo. kaniiniga lagu magacaabo dexamethasone ayaa noqday daawada kaliya ee dili karaysa cudurka coronavirus dhimashadana ka badbaadin karaysa dadka qaba cudurka ee xaaladda halista ku jira. madaxa kooxda baaritaanada iyo tijaabada sameysay Professor Beta Horby